sida adiga lagu abuuray ayaa xaalaadkan adduunka bini aadamka la soo darsaayana ilaahay baa abuuray barwaaqada ilaahay baa abuuray abaarta ilaahay baa abuuray xanuunka ilaahay baa keena caafimaadka ilaahay baa keena amniga ilaahay baa haya colaadda ilaahay baa keena marka ahwaal hadday timaado maaha wax daa'ima ogow waa waxina soo maray oo tagaya habeenku ku soo maray oo baxaya famahma taala al-laylu fala budda min tuluu'i al-fajr famahma taala al-umru fala budda min dukhul al-qabr waligiiba habeenku ha dheeraade waa bari baa ku xiga waligaaba noloshu ha ku dheeraate geeri baa ku xigta sidaas oo kale weeyaan haddaad barwaaqa maanta aad ku jirto xaaladda barwaaqada ka faa'iideyso oo ilaahay ugu dhawow haddaad abaar iyo saboolnimo iyo faqri ay kula soo darsaanahe iyada laftigeega waa xaalad ilaahay baa kugu eegaye ka faa'iideyso ilaahay ugu dhawow barwaaqa hadday nala soo daristo waa shukriyeynaa ilaahay baan ugu dhawaanaynaa barwaaqada balaayo iyo dhibaato qaadi kari maynay hadday nala soo darsaana waa sabraynaa oo diinteenaan istiqaamo ku yeelanaynaa iyadana ilaahay baan ugu dhawaanaynaa buu yidhi تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة برواقة إلهي كقرو أبارتي دباتة مركا كود عدو إلهي كقرن دون أديقنا بركا بكان هدا تهي أيوب بكو دليل سدو دين استقامة وقوية استقامة وقوية له مال قبين هدا تهينا كم تجار بعدونك صمرتو أهل الله وإلهي تقال جزاك الله خير dhalinyar haddaa tahayna dhallinyarnimada ilaahaaga ku garo oo toddobada ilaahay u hadhaynaya waxaa ka mida buu nebigu yidhi shaabun nasha'a fii taacati illaah nin dhallinyaro ah oo dhallinyarnimadiisa ilaahay ku barbaaray cibaadadiisa daacadda ilaahay ku barbaaray dhallinyarnimaduna waa qayb ka mida waalida buu rasuulku yidhi waalan yahay ninka dhallinyaradu markuu dhallinyaro yahay haddii ilaahay uu toosiyo oo ilaahay diinta istiqaamo uu kugu siiyo adduunkan aakhiro waad liibaantay ogow fanastaqiim ilaahay amarkiisaan ku toosnaano insha allah dhahada meel fiican baan haystaana oo lumi maayo oo dad muslimiina ayaan dhex joogaa dad muslimiina ayaan ku dhex noolahay oo lumi maayana ha ku degmin nebiyullaahi aadam calayhi assalaam isagaba meesha lagu imtixaamay jannada dhexdeeday ahayd jannada meel ka fiican ma jirtaa halkaas lagu ikhtibaar isaga jannada dhexdeeda fakula minha haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin shaydan ayaa u yimid ibliis alayhi la'na dana uu waswaasiyo wuxuu ku yiri geedkaas cunidiisa laga reebay manfaacada ku jirta ma ku sheega ha noo sheeg haddaad adiga xawa geedka aad cuni lahaydeen adiga iyo xawa laba midun baad noqon lahaydeen an takuna malakayni aw takuna min al-khalidina laba malag baad noqon lahaydeen ama laba waligood jannada ku waari ayaad ahaan lahaydeen buu ku yidhi waa daakhil aljanna lagu imtixaamay nebi aadam calayhi salaam deedna gafkiibuu ku dhacay jannadii baa laga soo saaray oo maalinka qiyaamaha dadku markay nebi aadam u tagaan ee shafaacada ay weydiistaan ay leeyihiin abul bashar baa tahay adaana nebiyada ugu horreeye ilaahay nooga ergee waa ka odhanaya gafkii aan jannada dhexdeeda ku galay ayaaba jannada inaga soo saaray buu leeyahay caabid baan ahay oo cibaadad badan baan ahoo ilaahay baan caabudaana ha ku degmin baa la yidhi ibliis samada meel ka bannaani ma jirto ilaa isaguba ilaahay buu ku caabuday haddana malaa'igta dhexdeeda isagoo ku nool oo buqcad kastoo samada ku taalla dusheeda ilaahay ku caabudayna isagana halkaabaa lagu imtixaamo lagu fidneeyey ibliis calayhi lacna xataa aadam calayhi salaam markii la sawiray suuraddiisa intaana ruuxda lagu afuufin 40 sano la yidhi ayuu nebi aadan engegayey dhoobadiisii ay engegaysay markaasay malaa'igtu sidaa u eegaan way ka cabsadaan markaasay u yimaadaan ibliis calayhi lacna oo malaa'igtu ay u arkayeen inuu yahay ka ilaahay ayaka ugu dhow markaa bay ku yidhahdaan xaamudow ilaahay noo bari
oo noo bari adaa ducadaada la aqbalaya waayo imtixaan baa soo socdee imtixaanka inaan ku fidnowna ayaan ka baqaynaaye ilaahay noo bari bay ku yidhahdeen imtixaanka inaanan ku dhicino ilaahay naga badbaadiyo markaasuu u duceeyaayuu yidhaahdaa ilaahay imtixaanka hay naga badbaadiyo iyakuu u ducayn isagu iska reebaa ducadii iyakaa loo aqbalay isagiina ikhtibaarkiiba ku dhacay baa la yidhi oo muxuu diiday sujuuddii nebi aadam buu iska diiday marka caabid baan ahay oo meel fiican baan ilaahay ku caabudayaa bay culimmadu leeyihiin ha ku degmina waa inaad cabsootaa oo cabsi ilaahay ha ku caabuddaa cabsidaasi markaa waxay keenaysaa inaad diintaada istiqaamo ku yeelatid oqoon baan leehoo cilmi baan leehayna ha ku degmin baa la yidhi iyadana nin baa isagana cilmiga lagu imtixaamay isagoo caalima ayaa la fidneeyey deedna markaaba diintiisii qalbiga diintii iyo cilmiguu lahaa qalbigiisa ilaahay uu ka saaray balcaan binu baacuraa ninkii la odhan jiray weeyaan ee reer bani israa'iil ahaa fii zamani muusa calayhi assalaam fii suurati alacraaf waa ka ilaahay ku sheegay watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu ashaytaanu fakana min alghaawiin waxaad uga warantaa baa nebiga lagu yidhi kaladii kii reer bani israa'iil ahaa xataa magaciisa ilaahay ma sheegin oo waxaa la siiyey aayaadkayagaan siinay baa ilaahay yidhi aayaad ismullaahi alacdamkaa la baray baa la yidhi magaca ilaahay ee weyn ee haddii ilaahay wax lagu weydiisto ilaahay ducada uunan soo celinayn ayaa ilaahay ninkaa uu baray baa la yidhi tafsiirka qurtubiga ayaa bacd alculamaa waxay qabaan meel alliya meeshuu eegaba carshigu ka arki jiray baa la yidhi hadduu xaggaa eega carshigu arkayey hadduu xaggaa eega carshiga raxmaanku arkayey hadduu xaggaa eega carshiga ilaahay buu arkayey qolana waxay idhahdeen mayo ismullaahi alacdamkaa la baray oo ducadiisaa mustajaabo ahayd madiinat alqudus buuna ku noolaa markaasaa nebi muuse calayhi salaam iyo qoomkiisii waxay dooneen inay qudus ay ka xoreeyaan nimankaa jabbaariinta ee gaalada niman walaalo oo jabbaariin oo gaalo ah ayaa qudus haysanayey markaa nebi muuse iyo qoomkiisa waxay ku dhaqaaqeen inay jihaad intay ku qaadaan qudus ay nimankaa jabbaariinta ay ka xoreeyaan markaa ninkan balcam binu baacuur la odhan jiray ama balcam binu baacuura labadaba waa la yidhaahaye ayay u yimaadeen markaa bay ku yidhaahdeen muuse nagu soo socda iyo qoomkiisii oo wada socda muusena waa nin xadiidoo adag ciidanna u wataa ciidan fara badanna u wataa hadduu magaalada naga qabsadana uuna halaagi oo una baabi'in dee nin waxaa tahay weliyo ilaahay u dhowa ducadiisa la aqbale xoolo iyo lacagba annaga ku siinayne nebi muuse naga habaar bay ku yidhahdeen way qabyaaladeeyeen dee innaga isku tolo bay ka yidhahdeen soomaalidana qabyaalad baa lagu imtixaamay soo maaha qabyaalad haddaad raacdo khatar weeyaan diintaadiyo khatar baad ku jirtaayo ogow qabiili ha noqona waxaad noqotaa nin qabiil ka sarreeya wax islaamnimo ahayn inay ku deeqin ninka muslimku waa laandheere 1 bilyan iyo 500 milyan oo muslimiin oo adduunyada ku nool baa tolkaya insha Allah dhahada bari baan qisamayna igu daraa jamaacana hayno waagii daaraha dhaadheer Mareykanka la qarxiyay bay ahayd 2001 bay ahayd maahan waxay dhaca qaraxo 2004 baan markaa annaguna Mareykan annagoo jamaaca ayaan magaalada New York ka dhaadhacnay maniya Sheekh Saciid ilaahu ku naxariiso 5-6 baan ahayn mataarka JF Kennedy airportka New York marka xaraasadu iyo ilaalintu waa adag tahay ayda iyo askarta isleeka dharkana iska sidana anako weelashayadii aan cuntada ku karsaneen waa iska wadanaa jamaacada dacwa waa cajiib moogtahay diyaaraduna waa Kuwaitiya arday jaamiciyiina marka reer Kuwait diyaaradda ka buuxa waa 2004 Mareykankana waa la fuujigan yahay saas dadku indhaha kala hayaan diyaaradda dhexdeeda ardaydan jaamiciyiinta wayna la yaaban yihiin raggan kan formigan leh ee haddana New York ka dhaadhacaya maxay yihiin حتى هدان السلام عليكم ندانو بس كايا ايغيان يلا نغو سويرن معناها ولادك
yeelkadood airportkii baan ka daadagnay dadkii jaamacadaha u socday nin walba qol baa lala galay interview lala yeeshay qol annakii mar alle markayna arkeen nimankii immigrationkii ma group baa tihiin ha annaku jamaaca nahay welcome halkan kaalaya kiishiye gooniya intayna joojiyeen kiishiye waa meeshan immigrationku ay baasaboorada kaga dhiftaan halka dadka maalin dhan la haysanayay 35 saacadan eega 35 daqiiqo noogu dhameeyeen annaka hawlaha yagii markaasaan halkaa imano alaabteedii baan iska qaadanay kuwa Soomaaliyaana arkay markaa mar alle markay Soomaalidiina arkeen ee Soomaali inaan nahayna ay noo garteen way baxsadeen maxay u baxsanayaan yaan wadaadada laynagu agsaburin markaasaan jamaacadii ku idhi unduru eega baan ku idhi dadkii nala afka ahaa ee isku wadanka aan ka wada imanay soo naga baxsan maayaan ha haddaba raggan istiqbaaloon haddana bal eega yaana istiqbaalay markaa niman dhakhtar ah qaarkood Mareykan cadaan ay yihiin qaarna Mareykan madow ay yihiin qaarna niman Aasiyaatiga oo wadankaas dhakhtarada ugu qiimo badan New York gudaheega markaas nin walba oo jamaacadii kamid ah hal gaari baa la noo diyaariyay hal gaari marale markaan u tagnaysaa noogu dhagdhageen markaasaan jamaacadii ku idhi innaka laandhaare haddaba arka daaciga laandheera abaan ku ninka muslimka ee ilaahay dartii u socda waa ka laandheerinimadiisu eega baan ku idhi marka waxaan qisadan u soo qaateen iigu sheegaya wax kala ma aha war muslimnimo meel ka sokaysa ha ku qancinba haddaad muslimnimo aad ku faanto oo qofka walaalka ee muslimnimo aad ku jeclaato oo muslimnimada islaamnimada aan isku xidhiidhino oo islaamnimada aan isku tixgelino adaa laandheere ogow ninkani marka fi suurati al-a'raaf qisadiisa lagaga warramay ismullahi al-a'zam ka ilaahay u furay baa leeyay ducadiisa mustajaaba ahayd laakiin niman tolkiya aytay u yimaadeen bay ku yiraahdeen nabi Muuse iyo qoomkiisii ayaa dagaal inagu soo qaaday naga habaar markaasuu yahay wuxuu hadaan Muuse habaaro adduunyadeedii aakhiradeedu way ga baabi'iyay may deewna baabiin Muuse waa nin xadiid adag magaalada hadduu soo galna reebi maayo waxa doonta naga ku siinay naga habaar waxa la yiri way galeen dagaalkii baa bilaamay nabi Muuse alayhi salaam waxa la yiri uu jabin kari waayay gaaladii markaasuu nabi Muuse ilaahay la munaajooday markaas ilaahay ku yiri adoon adoomahayga kamida meesha ku jiro isaga in habaaraya buu yiri markaasuu nabi Muuse yiri ya rabbi baadil marba haduu ku taagan yahay oo dad baadil wadana uu u kaalmaynayo diintan adiga isaga inaga dhaxaysid adiguna ku xurmaynaysid ku qadarinaysid ilaahu diintaasi ismullahi al-a'zam ka aad bartay ilaahu ka saar buu ka masax qalbigiisa وعلى هل مركلي قلبي سأم بوحكة سواء كعنو وحش شمبر أو كلا نك أفكي سكب حبا ليري لأن عرب كبا صعود عين مركز إليهن عيدا كي موسانا ويسوق درقا يان كل صوت وانا يان مركز وراوي حباركي ودي مركب لي هاي هدان حبار تمنا حبار كيغو إنكو نقول عياب ولي النبي موسى كل عما يهديته وايو حرير كي أني إلهي نقد حيا ماشي كبا حبيبي الله هديت ولا واحد كلام نقول تاجر ما هي لكن مكري بان هيا بودي مكري شرقول بان نبي موسى قوم جيس أود جاي نايه شرقول كابان نيش شيء فرسمدا كود قال قلبي وما هي فرسمدا وعود قبله إنه ير بكرتها در قروح بدر انتظر حدان نبي موسى قوم جيس كور جاي بودي لأنه ويكفد نوبيان وضدك النبي موسى الله سعدا قبلها يرير بكفد نوبيان مركز الزنا ده معاصده أي كل عنا ها إلهي قرقار كيسا كفيد ميبي عقوبة كسو دقيسة مركز مكر تلقى أين النسيم وياني هبار إيقا سعونا يا إمكا مجرو وانك إلهي يري كالذي آتيناه آياتنا محا علمك انت هلا اكبر الى حيبر اسم الله الاعظم كانوا يقانون وعلى waxa kaliya ee ninka dariiqa ka saartay leexisay waa casabiyad oo qabyaalad marka caalim baan ahay
aqoon baan leeyahay ilaahay baan u dhowahay ha ku degmin dad fiican baan la joogaana ha ku degmino abu jahal iyo abu lahabahe nabi maxamed bay arkeen sallallahu alayhi wasallam hadalkii nabi maxamed bay maqleen quraanku nabi maxamed akhrinayay bay dhageysteen